shir jaraa'id oo uu qabtay Axmed Maxamed Diirshe oo ku qabtay hoteelka Maasha Allah ee magaalada Burco ayuu kaga hadlay xadhig ay u geysteen ciidamada booliska ee magaalada Burco waxaanu si kulul u weeraray mulkiilaha iyo maamulka hoteelka Cigaal oo ku yaala duleedka waqooyi ee magaalada Burco waxaanu ka dhawaajiyay in ay mas'uul ka ahaayeen isla mar ahaantaana ay qirteen inay ka dambeeyeen xadhigiisa labadii habeenimana waxa ka dhacday arrin la yaab leh arrintaasna mid yani sharafta iyo wanaaga lagu yaqaanay reer Burco qosaysa maahan waa mid dad shakhsiyaad gooni ama hoteelka Cigaal uu sameeyay marka arrin laga xumaaday ahayd waxaanu tibaaxay in loo diiday inuu cibaadeysto intii uu ku jiray xabsiga qaybta booliska magaalada Burco hase yeeshee waxa uu mahad u soo jeediyay dadweynaha magaalada Burco oo uu sheegay inay yihiin dad wanaagsan isla mar ahaantaana aanay raalli ka ahayn xarigiisa dhinaca kalena maran wax ka weydiinay gudoomiyaha gobolka Togdheer Mudane Yaasiin Maxamed Cabdi arintani isagoo arrimahaasi ka hadlaya waxa hadaladiisii kamid ahaa Axmed Niiri way jirtay على صدحات إن ركبتي نكروا عامل ينوضن سيدان كور إننا أنا ربحين تمرك تبع ورد على كهلين نكروا الفاميلي بيجي بهالكم الفاميلي كيسامين أو برعدك بشر هذا هكذا صون هكذا برعي مثلا وقال وقال كما كان ليس كم ونمت وقفت فضل قفت على هذا قلت له اللي هو سلاح الله سلاح الله نكاسو ما كنت على سوقيني أيوه العصام أكو برعي محترك عقال بقري طبعا بوليس وفنت الشغل بعيتها وإيرانينا يدينا من قليل طلق يدينا من قليل كوف يدينا من قليل مقالة أيام نكا وتقل واحد قلت لنا أنا كشكي واجرت لوقتي هذا يقول لك الوطين كوراء أبوك أنا بأي مدان أما قولوا الحكي مدان أما قولوا لك الحكي مدان أما ما أنا كلام حكي مدان ويجرى دقة صغيرة ومدين أنا الوضع لباتوي sidoo kalena waxaan wax ka weydiinay xarigan ninkan taliyaha qaybta booliska dhagacade ee gobolka Togdheer waxaan u sheegay in ninkani laga shakiyay oo ay ka shakiyeen ciidamada booliska qaybtooda sirdoobida ee joogta hoteelka Cigaal isla mar ahaantaana ninkaasi ay sidaa u qabteen oo ay uga shakiyeen inuu ka tirsan yahay kooxaha argagixisada taliyuhu waxa uu xusay in xorriyadiisii loo soo celiyay 24 saacadood kadib markii waxba lagu waayay hase yeeshee waxa uu meesha ka saaray in loo diiday inuu cibaadeysto ninkan isla mar ahaantaana lagu xiray qol yar oo cidhiidhiya isagoo taliyuhu arrimahaasi ka hadlayna waxa hadaladiisii kamid ahaa si kastaba ahaatee ninkan ayaa sheegay inuu ka tirsan yahay mas'uuliyiinta sarsare ee xisbiga shaqaalaha ee dalka talada dalka haya Norway uu sheegay sidoo kale inuu ka tirsan yahay ururada Soomaalida ee ka jira Norway kuwooda ugu firfircoon waxa uu sheegay inuu koonfurta Soomaaliya u aaday isla mar ahaantaana uu soo maray magaalada Burco xilligii uu ka yimid dalka Norway si uu macaawimo uga qaybiyo koonfurta Soomaaliya waxa uu sheegay kadib markii uu macaawadii qaybiyay inuu dib ugu soo laabtay Somaliland waxaanu sidoo kale xusay in uu kamid ahaa dadkii gacanta weyn ka geystay in Somaliland deeqaha la siiyay hay'adaha qaramada midoobay loo soo mariyay Nairobi in si toos ah loo keenay Somaliland hase yeeshee ninkani maraan wax ka weydiinay inuu sitay dukumeenti cadeynaya inuu ka tirsan yahay xisbiga talada dalka Norway haya waxa uu sheegay in aanu sidanin dukumeenti cadeynaya isla mar ahaantaana uu ku nuuxnuuxsaday inuu ka tirsan yahay xisbiga talada dalka Norway inay ka xun yihiin arrimaha noocan oo kale ah inay ka dhacaan magaalada Burco iyo gabi ahaanba Somaliland